waxaa loo aqoonsaday taliyaha ugu wanaagsan ee soo maray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa uu hantiyay oo uu gacanta ku dhigay bilad sharaf iyo geesi qaran. Waa General Oduwa oo loo aqoonsaday inuu yahay taliyihii ugu hawsha iyo shaqada badnaa ee soo maray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ammaan bogaadin iyo dhiirigelin kala duwan oo uu kala kulmay dowladaha taageera Soomaaliya ee dhanka ciidamada sida Turkiga iyo Midowga Yurub. waa halbeega wararkii warbixinteenna maanta oo Jimcaha ku falanqayn doono shakhsiga, shaqada iyo hawsha qaranka uu u hayo General Oduwa Yusuf Raage oo si weyn loo bogaadiyey. Muxuu ka qabtay taliska ciidanka oo markii hore isku dhexyaac ka jiray? Muxuuse ka bedelay howlaha ciidanka iyo habshaqayntooda? Warbixinteennan maanta oo Jimcaha ayaan ku falanqayn doonaa, balse marka hore sii share gareeya muuqaalkan oo like-na saara, nagu soo biir oo followde page-keena Facebook ee halbeega wararka. Sidoo kale subscribe inoo saar YouTube-keena halbeega si aad halkaas uga daalacato wararka iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. Waa hagaag aynu ku horumarnay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage ayaa loo aqoonsaday geesi qaran iyo mid ka mid ah halyeeyadii ugu wanaagsanaa ee soo maray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. General Oduwa tan iyo markii loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo qaad darajada sareeya guuto, waxa uu bedel ku sameeyay ciidanka xoogga qaybahooda kala duwan, talisyada iyo sidoo kale halka ciidamada laga maamulo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku wada mideysan yihiin. dhalinyaro fircoon u heelan shaqada qaranka ayuu gabi ahaan ku bedelay odayaal muddo hoggaanka u hayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. In ka badan 3 sano oo uu yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka, wax weyn ayaa iska bedelay hawsha iyo shaqada ciidamada xoogga. Waxa ay la wareegeen deegaano kala duwan oo ay hore uga sugnaayeen xoogga ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. Turkiga ayaa si weyn u bogaadisay janankan da'da yar ee hoggaanka u haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxay ku tilmaameen halyeey qaran, geesi u soo baxay Soomaaliya, isla markaana u heelan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. General Oduwa Yusuf Raage baal dahab ayuu ka galayaa taliska ciidanka xoogga iyo maamulka cusub ee uu ku soo kordhiyey. Sidoo kale waxaa dib u habeyn, diiwaangelin iyo qaabeynba lagu sameeyey qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, min magaalo, tuulo ilaa iyo gobol. Waana mid ka mid ah fikradihii ka soo maaxday taliya Oduwa. Hadda waxa uu gudoomay oo uu gacanta ku dhigay bilad sharaf iyo geesi qaran oo uu ku muteysay howlaha shaqo ee qarankan uu hayo. General Oduwa Yusuf Raage sidoo kale waxa uu qayb weyn ka qaatay in AMISOM dalkan laga saaro, isagoo ku cadaadiyay Midowga Afrika inay diyaar yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo dabooli kara baahiyaha amni ee AMISOM Soomaaliya ay u joogaan. Waxa uu diyaariyay gacantana ku hayaa 10,000 oo askari oo xoogga dalka ah, isla markaana qaba tababaro kala duwan una diyaarsan difaaca dalkooda hooye ee Soomaaliya. General Oduwa Yusuf Raage taariikhda ayaa xusi doonta. Waa geesi Soomaaliya u soo baxay, wax ka bedel weynna ku sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaba daawadow, adigu maxay kula tahay? Sideese u aragtaa General Oduwa iyo howlaha qaranka uu hayo? Fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee comments-ka. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.